Soomaalidu geeska Afrika islaamka ka hor kumanyaal sano ka hor ay deganeed وين دقنيت لكن مقعان موسى جري ولا شيء هناك برائب مقعان صوماليا مقع جري ماين لكن ومد أهان وقت ورا الإسلام كسو قاري مركان لأنها إسلام كهر يعني مقعان صومالي لم يقان meel ku qorana lama hayo waxay dadkii hore ay u yiqiineen khaasatan masaaridii hore bunta ardal bunta ay dhihi jireen yunaaniyiinta iyo maaragtay ama Greega iyo nimankii Roomaanka aan waxay u yiqiineen maaragtay dhulkii ilaahiyada dhulkii udgoonka carabtana waxay maaragtay u yiqiinaan iyo xataa nimankan yunaaniyiinta barbara ayaa loo yaqaan marka iyo magacyo kale oo adigu kuwaasa ugu muhiimsan inta awal loo yaqiin laakiin waxaan rabaa in aan dib idin celiyo dhowr kun oo sano ka hor waxaan rabaa inaad ila aragtaan hogaamiye Soomaaliyeed oo la sawiray 3500 oo sano ka hor hogaamiyahaas oo la rumaysan yahay inuu raas casay meel u dhow uu saldhigiisu ahaa iyo wixii laga yiri sida ay u arkayeen dadkii sawaray oo ah masaaridii hore marka masaaridu wuxuu hogaamiyahani kaliya wuxuu nasiib u yeeshay in la sawiro oo arrintiisa la faahfaahiyo waqtigaas waa ninka la yiraahdo shan markan oo waaweyn oo boqoradii xabsashuud ay soo dirtay ninkii ay u tageen oo ay la kulmeen oo shanta markan oo ciidan xoog leh oo isugu jira shaqaale iyo ciidan hubeysan ay la socdeen مسارده waxay u sawireen nin madax ka ah nidaam aad u abaabulan oo kooda la mid ah hatta magaciisa waxa la oran jiray berxo afka masaaridana magaca fircoon waxa lagu yiraahdaa berco waxaad garanaysaa labada cinwaan oo labada madax la siiyay isku dhawaayeen xaaskiisa oo la sawiran waxa la oran jiray oo ahayd iyadana boqorad loo tixgeliyay waxa la oran jiray aati magacaas oo kale amiirad magaca masaarida wuxuu ku ahaa amiirad buu ku ahaa laakiin saw nasiibun buu yeeshay kunkii sano oo isaga ka horeeyay masaaridu waxay ka hadlayeen nidaamka noocaas jiritaankiisa wax yar ayaynu sida aynu u aragno taariikhda Soomaaliya iyo sida ay tahay sida inaga loo kala dhacay sida ay tahay farq weyn baa u dhaxeeya baaritaano cusub oo la sameeyay waxay sugayaan in jiritaanka qaranka Soomaaliyeed ka ahaan ummad degaan iyo luqad iyo dhaqan u gaar uu ku siman yahay 6000 ilaa 7000 sano ka hor marka xeebaha Soomaaliya waxay ahaayeen xarig marsh ilaa meesha la yiraahdo koonfurta Yurub ilaa koonfurta Pacific waxa ka hana qaaday 15 boqortooyo oo waaweyn oo inta isdaba 15 ka boqortooyo oo waaweyn mid kaliya oo ka fursatay in ayna Soomaaliya soo booqan oo xiriir la yeelan ma jirin nidaamka noocaas oo ayna wax badan ka ogeyn maxaa keenay bal ka fakar waxa keenay in inta jiro oo intaas uu amba qaadna ma jiro wadan kale oo Afrikaan ah oo sheegan kara in muddo inta leeg dadkiisu dal iyo dad joogto ah oo meeshaas kale ugu nool wadanka Afrikaan oo la heli kara ma jiro wadan kasta dadka ku nool maanta waa dad meel kale uga yimid taariikhdiisu isbedeshay Soomaaliya kaliya uma lahayn umadan waxba ma yan qorin Soomaalida oo taariikheedii ma qorna waxay soo martay amjaadi iyo tacliimi islaamka nashrigiisa waxay soo qaadatay ma qorna sida waqtiga la hayo wax faahfaahsan oo qoran waxay ahayd waqtiyadii miilaadka dhowr qarniyo ka horeysay miilaadka iyo dhowr qarniyo ka dambeysay laakiin waxyaalaha ay ka hadleen waqtigaas Greek Roomaankii baa ka hadlay waxyaalaha ka hadleen waxay ahaayeen inta badan xadaarad ka jirtay xeebaha magaalooyin waxyaalaha arrimaha siyaasadda aad uga ma ay hadleen waqtiga ugu horeysay ama qofkii ugu horeeyay oo arrin siyaasadeed hogaamin wax ku oo Soomaaliyeed faahfaahiyay oo ka hadlay wuxuu ahaa al-Mas'uudi 12 qarni ka hor al-Mas'uudi oo ku abtirsada saxaabiga Abdullah ibn Mas'uud waxa la yiraahdaa Herodotus-kii Carbeed baa la yiraahdaa Herodotus wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo taariikhna Greek buu ahaa 2700 sano ka hor ninkii ugu horeeyay taariikh nidaamsan qora marka inaga aageena Herodotus baa la yiraahdaa wuxuu ahaa al-Mas'uudi marka taariikhdaas nidaamsan oo uu ka qoray adduunka waxa ku jirtay boqortooyo ka jirtay dhulkan u dhaxeeya Shabeelle ilaa webiga la yiraahdo Galaana oo ku dhamaada Milindi boqortooyo Soomaaliyeed oo ka jirtay uu sifeeyay oo magacyadeedii iyo qaabka uu wuxuu dhan Soomaali ahaayeen
halkaa boqortooyaa ka jirta meel baa xarun u ahayd uu ku magacaabay daaru mamlaka baa xarun u ahayd wuxuu yidhi marka waxay lahaayeen boqorro iyo xeerar ay ka dhaxleen dadkoodii salafka ahaa xeerarkaas boqorku hadduu ka leexdo boqorkaa xukunka waa laga qaadi jiray carruurtiisana waa laga xarimi jiray inay xukunka qabsadaan mar labaad ciidamadiisu waxay dhammaayeen ilaa 300 oo kun sida haddeer reer waamoodku ay sameeyaan dibida ayay raran jireen boqorka waxaa la oran jiray waaq ilmo waaq waa macbuudkii waagaa soomaalidu ay caabudi jireen islaamka ka hor marka waaq ilmo waxaa loogu baxshay buu yidhi boqorka iyo ilaahay baa xiriir laga dhexaysiin jiray marka boqortooyadaas ayna wax badan ka ogeyn baa ugu horreysay wax la sifeeyo waa ibn mascuud 12 qarni ka hor sifeeyo حتى قرونتي دحا ابن بطوطة مركو إمادي سومالي طبعا وحلقة يابا وحيكو آدنتهاي تضوب بقول إيو كنت ميد هجرة ميلاس نبي يكو آدنتهاي صلى الله عليه وسلم أما وحير كهرو سببت ابن بطوطة تضوب بقول شانتي بود شيء أصدقوا شان إلا باطن سنجر ودول كيسي كسو تجي مدينة فاس شان إلا باطن سلو رحلة كجوري دولكاس تركي iyo maarad Anadol iyo bilaadaas oo Soomaali iyo inta Soomaali uu xajiyay waa ka soo noqday Shaam iyo bilaadan uu imaaday oo waa noqday maradii saddexaad rixladii saddexaad oo soo galay Yemen iyo dhulkan imaaday ayaa Soomaali soo gaaray ibn Battuta iyo dadka la midka ahaayeen oo soo gaareen Soomaali oo Zeylac soo gaareen oo taariikhda qoray oo Muqdisho soo gaareen hadana ka soo tageen soo gaareen jasiiradahan xeebtan Kenya Kilwa iyo maxalli Mombasa iyo jasiiradahan soo gaaray magac Soomaali ma sheegin hal marna bilaad Sultan Muqdisho uu ka hadlay iyo maxalli bilaadooda Zeylac inay ka soo bilaabanayso sheegay ilaa Muqdisho marka horta magaca Soomaaliga magac sii jiray ma ahin sidaa darteed xuduud juqraafi oo la garanayo oo ilaheedna Soomaali oo xuduud ahaan ma jirin dhulka islaamka waa soo gaaray afrikadan geeskan badan uu soo gudbay asxaab rasuulullaahi oo joogan sida taariikhaha qaar ay sheegayeen buu diinka soo gaaray magaca Soomaaliga ah oo markii ugu horeysay oo la maqlo wuxuu ku jiraa hees xabashi ah oo Soomaalidu ay ku jirto shucuubti laga adkaaday moogta oo qarnigii 15aad waay maaragtay 1414 ilaa 1419 waagaas markaas Ethiopia ama Xabashi marka Ethiopia ma jirin dhulka Xabashida waxa ka talin jiray nin la dhaho boqor la dhaho Yashaq Isaaq marka ninkaas loo heesaa 4 qarni ayaa muslimiintii Xabashada ay ka dhaxeeyeen maartay dagaal marka ninkan boqorradii isbedelayeen mid kamid ah waa mid ka fursad u helay inuu Soomaalida jabiyo marka waa la amaanay qofku wax jabiyo waxa la yiri Soomaaliyeengir Thimuriyeengir oo amxaari ah ayaa ku qoran gabaygaas intaas kala soo baxnay marka maxay ku leeyahay Soomaaliyeengir markuu leeyahay u sheega Soomaalida Thimud u sheeg Thimud waa dad oo Zamud ee la yiraahdo waa dad Soomaali ku darsamay ayagana marka meeshaas ayaa qoraal ila nimanka waa naga ilbaxsan yihiin qoraal waxay lahaayeen amxaarada ma artay kun sano ka badan ay lahaayeen meeshaas ugu horeysa magaca Soomaali raadkiisi marka hadii qarnigii 15aad Soomaalidu ay ahayd shucuubti laga adkaaday ilaa iyo 5 qarni ka hor waxay ahayn shacbi jiro oo xoog leh marka magaalada xamar la yiraahdo xabashida laftigooda ayaa markay dagaalamayeen waxay yiraahdeen xamarna dawlad baa ka jirtay oo hadii xamar laftigeeda dib aan ugu noqdo alxamawi oo isku waqti ahaayeen ciidka aan xusay baa wuxuu xusay oo yiri odayaal baa xamar u taliya ku maamula xeer ay leeyihiin qoraal banaadiri ah baa arintaa ku raacsan oo wuxuu leeyahay isla waqtiga ahaa 1250 isaguna ku beegan wuxuu leeyahay markay ay odayaal ka socda ay magaalada xukumayeen magaalada Sultan ayna lahayn ayaa 1260 waqti ku beegan nin la yiraahdo Fakhruddin Sultan noqday oo magaalada maamulkeeda miday maamulkaas waxa marxanti ka noqday ibn Battuta 1330 marka maamulka ninka Sultan Fakhruddin markuu magaalada maamulkeeda midaynay 60 sano ka bacdi ama 70 sano ka bacdi buu xamartay wuxuu ku arkay oo sifeeyay oo qoraalkiisa ku qoran dawlad maamulkeedu u og yahay dawladaha casriga ee maanta jira oo nin la yiraahdo Sultan Abu Bakr oo yiraahdo Soomaaliya af Carabi ku hadlay
وحكومي كسرنا وح فحسن أو هجانين سياسية وحكومة ورأي حسين وحوها ابن السعيد وسوون عانا صومالي أبو هذا الصومالي أبو العام وسوى قرن يستحيطون هذا وقت وقرية وحوالي كن يلا بقولي كونتك ميلادي زي العوحة حكومة زي العوحة هاد مجالات وح حسيت بدن أو وح عن الصومالي وقتها مركب وح حكومة يبير إن من قضية وح كسر النظام اسكت بردن وقناع سجى أدون كورن اسكوبي ما قضياش مركز زي العوحة حكومة دولة أوضة لفتي كذا وح على أساس زيادة بقولي كونتك حوالي على أساس قرار سونا أوضة ووقتها أساس ابن سعيد كوبا ما سونا فهي فأنت أقوم بالبيع وحصي دولة إلى حياة الزيلة إلى كل هذا ما بكاس كلا أبو بكر محمد كعسنا سجن هذا تقولي ما بكاس كلا إلى هذا انتهانا وبيقدر ولا هذا إنتاس أوردن إمبراطوريات بينهم إنتاس أوردن الإسلام وكفى في السيء وحكي بقرطوية في الإسلام مركب قضياش مركب روتي لين مركب اللي هذا عمر والي أسمع وصل سلبي يسوع ها جدها مجال أوفاد الأورنجي وبيجي هواش يعني سواء بحسي سلبي يسوع وصلنا كل جدوه وكل اسمه حكومي فيسروي واحد اللي هذا أوكله قضياش نسيلع فدي النظام كان فيلع فدي أي وكيل وصيها جدها فوق وكيل وصيها مراد سبب كله بحرمة السؤال مجال عام أوفاد لي ninkaas ayaa mideeyay 1210 maamulkii awda mideeyay oo wuxuu dhisay boqortooyo jirtay ilaa 200 nimanka aad maqasheen oo xukumayeen dhulkaas Sacdudiin iyo Xaqudiin iyo Jamaaludiin iyo Imaam Maxamed iyo nimankii markii dambe Imaam Axmed uu ka soo baxay nimankaas oo aan wax badan leeyo ka shoogin laakiin ah niman Soomaali oo la yaqaan abtiriskooda la yaqaan oo leena ka qariyay nidaamkaas weyn buu sameeyay ninka dawladdaas marka awda maxay samaysay horta marka koobaad waxay ahayd imbratoriyad intaas oo dhan bay gaartay muslimiinta geeska Afrika oo dhan bay dawlad u ahayd dadkaas halka aan degayno dhulka fog waxa deganaa dad kale oo kuushi ah Soomaalida la xiriira Highland Eastern Cushitic ba afka ka lagu yiraahdaa dadkan hadda hadiyada iyo sidaamada la yiraahdo dadkaas bay muslimiinta imbratoriyad waxaas oo dhan bay sukeen muslimiinta geeska Afrika oo dhan bay dawlad u ahayd xabashida ayaa 1300 xoogaagi waxay ka timi wallo amxaarada oo dhulkaas sidaa ugu soo fikray dagaal bay la gashay laba qarni iyo ka hor iyo nus qarni iyo rubuc ka hor bay Imaam Axmed ka hor dagaal kula jirtay way difaacday adigu inkastoo dhul laga qabsaday aan dad Soomaalidu ku badnayn haddana dhulka Soomaalida way difaacday xadku wuxuu ahaa si kale kuma garataan meesha hadda Addis Ababa ay tahay way xadka awdal iyo amxaaradu ahaa markay soo fiday 1332 bay bilowday soo fiditaan waxay kaloo haybadeeda ku fidisay dhulka Soomaalida oo dhan oo waxay ahayd dawlad qaran qoraallo badan baa jira oo inkastoo ay ku beegan yihiin 5 qarni ka hor oo xusaya in meesha la yiraahdo Raas Casayr dhulkan hadda bari in ay ka jirtay maamul saldanad wax ku ool ah oo laga xukumo dawladda awdal ay xukunto ilaa 5 qoraal baa jira oo arrinta Boortaqiis iyo Xabashi isku jira Xabashidu qoraal ay leeyihiin waxay yiraahdeen dawladda xamar ka jirta waxay caawisaa oo xiriir la leedahay dawladda nala dagaalamaysa ee awdal qarnigii 16aad Axmed Gurey iyo boqortooyada Xabashida ee dhul dheertaas Itoobiya deganeed ay isleenayeen nin baabu qoray la yiraahdo Arab Faqih naanaysahan loo dhaho wuxuu qoray buug la dhaho Futuuxul Xabash ninkaas magaca Soomaaligaana uu sheegay in dad Soomaaliyeed ay jiraan laakiin qabaa'il Soomaaliyeed oo qabaa'ilkii dagaalkaas ka qayb galeen uu sheegay magacyadooda moogta waxaa kaloo jira qoraal Boortaqiis wuxuu soo gaaray 500 sano ka hor soo gaaray gobolka ninkii Faasco Dagama oo walaalkiis markii dambe uu ciidamada Imaam Axmed ay dili doonaan Boortaqiisku wuxuu leeyahay isla dhulkii aan xusnay oo Shabeelle iyo Maliidi u dhaxeeyay oo qabaa'ilka Soomaalidu ay deganaayeen wuxuu leeyahay waxa dhulkaas oo qabaa'ilku magacaabay Soomaalida ahaa iyo nidaamkooda inay markaa muslim ahayn xoolo dhaqatadii iyo geel dhaqanayeen wixii ay ahaayeen wuxuu leeyahay waxay hoos imaanayeen qabaa'ilkaas oo ka haybaysanayeen dawladda awdal ee Xabashida la dagaalanta dawladdan awdal oo dawlad qaran ah sida ahayd sidaas haybadeeda ugu fidisay oo guri kasta oo Soomaaliyeed haybadeedu way iyada u ahayd dawlad qaran markii dambe Imaam Axmed waa tu soo baxay Imaam Axmed qaabku ku soo baxay waxay ahayd
qaabkaas labadii qarni iyo rubca ay xabashada la dagaalamayso oo meesha ay ku horeysay habac baa soo galay dowladdii dagaal baa wuxuu ka dhacay meel Addis Ababa ku dhow 1517 oo markaa Boortaqiiskuna waa joogaa iyadoo oo Boortaqiisku uu duqeynayay Sayla oo uu burburinayo marka ninkii caanka ahaa ee Garaad Maxfuud oo abaanduulihii ugu weynaa ee adduunka soo maray baa loo ictiqaadiyaa inuu ka mid ahaa oo suldaanku ka hooseeyay ninkii meeshii lagu dilay suldaankiina goobtii uu ka soo caray suldaankiina waxaa lagu eedeeyay in uu goobta ka soo cararay abaanduulihiisa una caawin dagaal sugeeya markaa dhacay oo bilowday suldaankii baa la dilay ikhtiyaar lagu sameeyay dagaal baa dhacay dagaalkaas niman dhalinyaro ah oo tawriyiin ah oo leh sandanadii way dabacday ayaa waday nimankaas imaam Axmed ka soo dhex baxay Garaad Maxfuudka la dilayaa waa ninka imaam Axmed Sodogiis gabadhiisu guursan doona wiil yar buu marka sagoo yar baa hogaamiyihiisa dhintay saga loo magacaabay saas uu ku soo baxay imaam Axmed marka dowladdu saas ku soo baxday sidaas uu markaas uu yiri waa inaan anu istiraatiijiyad intuu bedelay xabashidan inta muddo dheer aan dagaalamino waa inaan jabinaa oo aan ka takhalusnaa hal mar waa inaan wax yar ka xusaa marka ciladii wax walba faa'iidada kaliya la sheegay ma ciladii imaam Axmed halgankiisii uu leeyahay laba ciladood baa ugu waaweynaa oo markii dambe sabab u noqday dhicitaanka dowladdii awdal 7 qarni iyo barka jirtay waxay ahaayeen markuu xukunka qabsaday inkastoo uu maamuus ahaan qoyskii reer Waale Asmac uu daayay uu xukunka loo ka qaaday oo aan ra'iisul wasaare ahaan u shaqeynayay haddana awoodii ka yari markuu soo dhintay Amir Nuur waa tuu soo bedelay Amir Nuur waa tuu soo nooliyay dowladdii waa tuu ninkii galowdi was oo imaam Axmed dilay Boortaqiisku markuu dilay uu la joogay waa tuu bedelay waa galowdi laftigiisa waa tuu dilay Amir Nuur markuu dhintay dagaal sokeeyaa bilowday dagaalku sokeeyaa wuxuu bilowday waxa meesha ka baxay ولا سوق قبصة وح ماشي كبح دولة التقليدي جاهد والاحترام تري ماشي كم غير وغير ولا أسمع أما ده حكاها هاي دجال كاس أيام ما كده مكاني أوضر إنه يكون بروتو عيدا كي أي دولة بسكلا هنا وحكم باباي أو كله فلوفي دجال الذي حاشيد البوليتي مركز ده كان أنا ولا هنا رمضان أو كي كونفورت بيان من هالكاس وقلبيت كونفورت قلبيت النجيلة فوقت كافيري يجا بيصو في ذي نمك الدين كجوري شيء أمير نور هرب معها حبشدنا ما هو يسجل إنه هرب عجزة هذا لما تشيل كريتيم وكسر الوقت لما بدينا وحبا كراع وحال رمضان أفريسي رمضان أيام سبب إنه قطعي أول ما كنت تدجال سكاي إن الدبل إسكان راعس أقول كي هذا قبصته بقول كي بس عاش هرب إلى حد وحوا عمل أسوي هالكاشرته markii shirki Berlin la diyaarinahay ka hor iyo markii shirki Berlin uu dhacay qarnigii 19aad reer galbeedku inta ayna dalka qabsan ama Afrika ama kan Soomaalida waxa la soo diray sahamo xoog leh oo dadku ay ku dhuumanayaan inay ganacsatay yihiin laakiin ay yihiin dad warbixin inay ka keenaan deegaanada la qabsan doono qabaa'ilka iyo dadka degan dadka u taliya wabiyaal maraakiib ay mari kartiin kale inay leeyihiin waxa ay abuurtaan waxa ay banaan geeyaan waxa muhiim u noqon kara isticmaalku marka uu halka tago waagi uu soo galay isticmaalka wadanka Soomaaliya isticmaalku markuu soo galay waxyaabaha oo khudurada leh oo sameeyay waxa kamid ah markii uu arkay madaaristan socota oo guuraysa oo dadkii ku soo islaamayeen Afrikada islaamka soo galayeen markay arkeen waxay sameeyeen in ay ciliyaan Soomaalida Afrikada ay ka ciliyaan dib u ciliyaan madaaristoodii faafaysay si ay u noqoto qaybo badan oo ayaga kamid ah oo la cilin way Kristaanka ku darsameen way gaaloobeen qaar baa maaratay wathaniyiin noqdeen oo diinta ka inqiraadeen ummadoodii ayaga kala go'een sidii qabaa'ilkan randiilada oo nasabkoodii garanayeen xataa afqaadi iyo qabaa'ilka ay ka imaadeen oo Soomaalida garanayeen qabaa'il kale oo Itoobiyadas galeen oo Kristoobeen oo fara badan gobolkan Sadaami iyo dhulkaas hada tagtid qabaa'il badan oo Soomaalida sheeganayeen oo Kristaan adarkaysa oo laakiin usuushoodii ay Soomaali tahay haddana aan laga Itoobiyaansaneen marka Ingiriiska iyo isticmaalkii wadamada imaaday wuxuu sameeyay wuxuu ciliyay ummadii zaxfiga Sacuudi iyo madaaristii intiqaalaysay iyo islaamkii faafay ayuu hor istaagay xuduud buu sameeyay dhulkan hadda NFD la dhigi jiray Soomaalida ay degan tahay xuduudooda dhulka North Eastern hadda loo yaqaan Kenya markaan joognaa waa dhulka nuskiisa waa ka yaryahay North Eastern waxay ka yartahay NFD nuskiis ayay ka yartahay waxaa jireen 6 magaalo oo waaweyn magaalada Isiolo Marsabit Moyale
iyo saddexda magaalo oo hadda Mandera iyo Wajir iyo Garissa dhammaan waxaa la dhihi jiray NFD. dhul Soomaaliyeed buu ahay, dhul Islaam buu ahay, madaaris Islaamka ayaa ka soo socotay, dib buu u celiyey, bal wuxuu iskugu reebay manaadiqdii barwaaqada ahayd oo khayraysneed. wuxuu ka raray ummadii Soomaalida, waa ka celiyey, waa laayay, waa la dagaalamay, dambi badan buu ummadda Soomaalida runta ka galay. waxaan mar 15 sano camal laga jooga ayaa waxaan tagay magaalada la yiraahdo Kapsabad oo Eldoret agteeda. Kapsabad waxaa la degay 1909 dadka degay waa Soomaali ayay ahaayeen. familiyaalka degay qaar kamid ah meesha ku ziyaartay oo ugu tagay oo meesha joogaan wali. marka dad sidaas oo kale soo baxsaday way jireen oo wadamadii soo galay oo Afrikadii soo dhaxgalay, laakiin maxaa la yiraahdaa ummadii waa celiyey. waxaa intaas ka sii daran cilintii uu cilay, xuduudkii uu sameeyey. waxaa ka sii daran madaaristii Afrikadii uu maaragtay waxbarayay oo madaarista tacliinta isticmaalka uu keenay oo tacliimtoodii uu dhulka geliyey. wuxuu ka dhadhiciyay oo tacliimta ku qoray iskuuladii ugu qoray dadkan Soomaalida inay yihiin anaasir carabiya, ummad carab ah oo carab ka imaaday oo isticmaar dhulkan ku imaaday oo dadkan gadan jireen oo gadi jireen oo Yurubka ka iibsan jireen inay yihiin oo madaaristoodii geliyay oo madaarista lagu dhigaa. Kenya ayaa laga dhigayay, meelo badan baa laga dhigayay. horta isticmaalkii baa ummadda Soomaalida noocaas u galay. daraawiish waxay leeyihiin markii Sayid Maxamed uu berbere ka soo degay xoogaa alaaba ayuu watay. alaabtii ayuu wuxuu yiri cashuur ka bixi. kolkaasuu gaalkii ku yiri adigu markaad halka soo degtay cashuur ma bixisay, yaa kaa qaaday? adigu meeshaas hadal ka dhacay. ninkii turjubaanka ayaa ku yiri war ina ka sii daawadaad waalan weeye. halka ayaa magacu ka raacay. waxa la yiri afkuna waa Hindi, hindiguna markaa askar baa dhulka joogtay. hindiga ayaa magaalada berbera kolkaa degdeganaayo askarta meesha ka shaqeysa hindi bay u badnayd. Soomaalida wali gacanta laguma dhigin oo banaankii ka jireen. muddo ayuu joogay berbera, halkaasuu ku guursaday. dabadeed muddo hadduu halkaa joogay wuxuu isku dayey inuu dadka waxbaro oo masaajidda ka wacdiyo, wax u aqriyo. waxaa ka hor yimi culammadii qaadiriyada ahayd, taasaa la isjiray. rag badan bay meeshaa isku arkeen, fadhiyo badan baa la qaatay, waa la dooday. qolo waliba waxay sheegataa in doodii laga badiyey oo saalixiyadu waxay yidhaahdaan qaadiriyada doodii wuu ka badiyey oo maalintaas maaragtay muxuu ahay banaanku ku dhigay. qaadiriyadan waxay yidhaahdeen annaguba magaalada nooga cararay markii dambeeto kolkii aanu maaragtay muxuu ahayey hadalkii iyo aanu ka badin. adigu si fiican baa meesha loogu dooday. dooda waxaa ka mid ahay qaadku waa xaaraan buuri, barida idaha in la cabaa waa xaaraan buuri, sigaarku waa xaaraan buuri, gaal in meel lala joogaa waa xaaraan buuri, caruurtiina inaad geysaan iskuullada xaaraan weeye buuri. maxaa yeele markaa dhaymoole iyo majacaysay ayaa ka furaa 2 iskool oo magaalada baadiyaheeda dhinaca waqooyi ee dhinaca koonfureed laga sameeyey. waxaa la leeyahay maalintii dambeeto ayaa mid Faranji wuxuu soo kaxayay koox caruura isagoo dareerinaya magaalada dhexdeeda ayuu dhagax qaatay oo gaalkii ku dhiftay oo wuxuu yidhi ilaahu maanta intaasaan awooda. wadaad la oran jiray Awgaas ayaa malaha xaalka ogaadayo kolkaasuu wuxuu ku yidhi bal galabtii dambeeto ina keen magaalada banaankeeda waxaan soo sheekaysanay. waa la israacay baa la leeyahay. hadallo ayaa dhex maray. waa ninka yiri markii dambeeto wali wadaadka haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni. warkaasna waa maqalay. intaas ayaan daraawiish way isku waafaqsan tahay hadalladaas oo dhan. markii dambena xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada. waa la dacweeyey. adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yare laga jeclayn ama wax ugu soo roobi karin waa ka baxay. markii dambeeto isagoo koox culamo ah oo halkaa ka raacday wata ayuu ka baxay magaalada berbera. wuxuu sii maray dhaymoole meesha la yidhaahdo, iskuul baa ka furaa. niman faransiisa ayaana dhigayey oo meesha ku hayay. ciyaal baana meesha joogay. wiil buu u yeerayo wuxuu yidhi magacaa. wuxuu yidhi John Father baa la yidhaahdaa. markii hore maxaa lagu oran jiray? maxamed buu yidhi. go-aan ahayn isowtaa dadkeeni la bedelay maaha buu yidhi oo beliba Kristoyna soo gashay. horey buu uga baxay oo wuxuu tegey ma jacsaye. dhagaxyuu ku tuurtuuray bay yidhaahdaan. kuma sedaahine waa ka baxay oo shiikh buu tegey. dariiqaa markaa ka dhisnayd qaadiriye ah. dariiqadii buu ku dhex dhacay. wuxuu waxa kana jiray waxaad yeeshaan meesha ka kaca oo aan jihaadna oo maaragtay muxuu angaalada ka hortagno. kama ay hoos qaadin waxna uma dhimin.
waa saagootiyeen horey buu u dhaafay burcuu sii maray magaalada burco xilligaa waxay ahayd ceel xooluhu ka cabbaan tuulo ma ahayn ceel xooluhu ka cabbaan ayay wax ka dhisanaana ma jirin horey buu u dhaafay suldaan nuur axmed ammaan oo habar yoonisa oo nin boqor ahaa ayuu ugu tegey baa la yidhi meel ood weyne ka sokaysa ninkaas ayaa darajeeyey xoole siiyey dhaqaaleeyey markii dambena wuu ka tegey oo wuxuu tegey meel la yidhaahdo qoryo weyn oo wadaamo goy u dhow halkaa ayuu xarun ka dhigtay oo ka aasaasay maaragtay muxuu ahaayey dariiqada saalixiya halkaa ayuu ka aasaasay horey buu uga gudbay wuxuu usii gudbay xagga bariga buuhoodle iyo halkaasuu tegey adigu meeshaa markuu joogay xoogaha khilaafyo yaro baa dhacay dhowr nin oo dhulbahantaa oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meeshaa ku dhintay horey buu uga tegey markii halkaa u egay dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoola isagoo wata wuxuu u kacay dal ogaadeen malaha khaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nogaasha iyo dhulbahantaa in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan wuxuu u tegey nimanka la yidhahdo maxamed subayr gurdumi meesha la yidhahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayey hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambeeto khalal ayaa dhacay arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgeriya ayaa markii horeeto hore loo diday oo la oran jiray jiijiile markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay layidhi waa xujoobay la oran jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa goor galaba ayaa uu raggiisi intuu kaxaystay dibadda ula baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayey wuxuu yidhi war shida dhabar jilic jiijiile ma u argalaa guraase xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu ahay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarahee halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaaldegin waa ku dabaaldegaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaaldegay markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la oran jiray garaad ahaa oo reer haaruun ahaa ayaa u digay wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax aw cabaas nin la oran jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaasuu ka qaxay oo wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdkaa ku jiray adigu 2 sano ah jigjiga waa kan colka geliyey colkaa laguma guulaysan dabadeed waa guureen oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo tabiyey 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig intaas wax dawlad u eg diin baynu fidinaynaa maaha wax dawlad u eg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan oo dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxaa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay markii jihaad la galay rag baa dhimanayay oo tagayay dagaalada la yiraahdo raggii hore afartii dagaaloo hore raggii xayndaabkiisa ku jiray xoog galaha waxay ku dhinteen afbakayle iyo caana xarigle maya afbakayle iyo farnidin iyo beerdhiga iyo cagar weyne afartaa goobood ayaa horta raggii ku dhintay xoog galaha daraawiish 350 baa ka dhimatay subaxa 350 baa subaxa go'ay 350 waa ka dhaawacay 360 waa dhimantay 350 waa nal ku qaaday jid baalena waa ku dhintay raggii waagi hore la shaqeynayay waxay u badnaayeen qolada tareerabtigiisa ee la yiraahdo reer khayr cali gariga ah marka raggii hore ee dagaalada ku dhintay wax waa ka haynay laakiin haddan korka kama hayo laakiin dagaalkii ilig muxuu ahay ilig heshiiskii ilig markuu dhacay raggii ka dambeeyey oo maaragtay muxuu ahayey markii talix loo soo guuray ama muradheero iyo cadadheero iyo halkaa la deganaa ama ilig la deganaa raggii joogay ayaan korka ka haya ragga uun sayid maxamed la yidhaahdo waxay u badnaayeen niman culimo ah oo sida sheekhu sheegay markii horena xajka kala yimid markii hore kadibna xarunta ku nagaaday oo ama qaaliyaal noqday oo xarunta ka noqday garsoorka xaggiisa
jihaadkana wax ka gala oo culimmadu uma kala socnayn niman dagaalyahana iyo niman culimo ah xarunta ma aha ina jihaad markuu jiro waa la wada tegi jiray laakiin dee ragga ugu waaweyn oo daraawiish marka la yidhahdo ugu waaweyn oo waxaa ka mid ah ninkii la ohan jiray ismaaciil mir oo kale oo muqadin ahaa oo dee nin mujaahida ahaa oo raggii dambena dee markii dambe soo caan baxay ahaa waxaa ka mid ah masalan ninkii la ohan jiray sheekh yuusuf oo walaalkiis ahaa waxaa ka mid ah khaliif sheekh cabdullah xarunta qeybteedii weyneyd oo koonfurta iyo webiga haystay baa ka mid ahaa rag sidaa aada u badan baa jiray oo iyo rag aan yani dagaalyahan ahoo shiikha noo sii wadi doone aan markaas sayidka qusuusina aan ahayn laakiin hadda muqadimiin aho dagaalkana qusuusina dee waa rag ag fadhiyo oo dee talada wax ku leh wax la weydiinayo oo nin walba lahaayo dee culamo ahaa daartaa geeda madhalaan joogni annagoo col ku maqan baanu waxaanu aragnay meel xoola lala maray markaasaan war xoolaha kan awr laga keeni webiga kan xoolo laga keeno sayidkii loo wado baa col helay col huwana reer nimanka dhulbahantiya isaaqa oo wada jiro burca jooga baa helay safarkii waa awr waa dhar iyo weeyi waxaa soo diray khaliif miya khaliif baa soo diray sheekh markaasaanu waxaanu annagoo geel wadanna oo ka keennay huwan ka helnay burco iyo ka keennay oo dhowr iyo 30 nina oo luga baan wagnay raad raada kanu waa maxay raadkii baan xagga iyo xaggaba u raacnay waxaanu u tagnay rag jiifa mayda oo daraawiirtiya raggii baanu garan walaahi waa hebel iyo hebel waa hebel iyo hebel raadkii baanu ku dhacnay xoola awrta raadkii baad ku dhacdeen raadkii awrta dad raggii iska dhaafteen maydkooda iskaga tagnay baanu dib u qaadnay xoolihii lala tegey intoora goortaanu wadi waanu ka soo noqonnay waxaan wadannaa geel 200 iyo badha waxaanu nahay 20 nin geelana waxaanu ka keennay nimankaa awrta la tegey huwan baa ka soo dhacay huwan baan ka soo dhacay huwan waa garanaysaa oo waxaa loo wadaa haddii alla ku wada dariiqada dariiqaanu ku wadnaa oo reer daareed baanu ingiriis nafar kama laaban meeshay wax kagama laaban mid 3 bay yahaadeen oo lamana gooday midna gacan baa lagu yugtay career 1670 ma iyaga ma iyagii waxba kamaba hadhinba 1670 waxbaba kama hadhin adeer waxaan ku weydiiyey koofil xabadda uu u dhintay ninkii ku dhuftay ma la yaqaanaa mise waxay ahayd xabadaha la iska ridaayey midood baa haleeshay artan boos waa ninka artan boos baa dhalay oy markaasaan wallaahi weyna artan boos waynaysay xabadii u dhacaysay baa waxaan arkay gac dhacday mise xabadii koofil oo go'ay markaasaan idhi alleele waxaa ku dhacday xabadii xesjeellade fardaaro gorongol baa odhanahaya fardaaro gorongol ma xabad kale ma dhicin oo ciidanka ingiriis ka tirsanaa oo ciidanka ingiriis ka tirsanaa ismaaciil mirana waa dilay bay yidhaahdaan ismaaciil mira ma daraawiish habeenkaasay guul la hoyatay jidka markaanu soo soconay alla baa naloo ku gabay faraskii teg ee sayidku wagiinayey oo qaaday wixiisii iyo rakuubtii gabay baa marka teg marka jidka anagoo joognaanu maqalnaa raajiitadeen koofilow duni waa dhaawac baanu nahay raajiitadeen koofilow dunida joogayni adigaa jidkii lagugu wada jimcilaanee jahanaba la geeyo adaakhiruu jahan waxaa jirtay sayidka dadoo dhan baa la dagaalamay markii dambe in wax laga sheega ayaa caadi noqotay maxaa yeelay dhowr meelood ayaa lagala dagaalamayay niman wadaada ah oo dhowra laga kaxeeyey soomaaliya ingiriisku ka qaaday oo maka geeyey oo yidhi ashkateeya sayid maxamed saalex ka ashkateeya in kale sayid maxamed wuxuu samaynayo dhaca dilka sayidnimada uu sheegtay u sheega macalinkiisii oo waxaad tidhaahdaan maaragtay ninkii arladii waa kharibay
ninka loo sheegayo uu leeyahay ku dacweeya waa kuma sayid maxamed saalax sayid maxamed sheekh oo dariiqada saalixiya madax u ahaa shiikhana markii hore dariiqada sayidkana markii hore dariiqada soo siiyey oo maka jooga xaaji cabdiraxmaan sayid maxamed naxariis allaha siiyey wuxuu igu yidhi sayid maxamed saalax markii hore wuxuu qoray warqad ladiifa oo aan xumaani ku jirin oo uu yidhi arrimadaasa la sheegaya bal xaalkiina ka warrama oo iska jira maaragtay muxuu ahaye dacaayadda iyo caynkaa iyo waxaa dadka warqad aan ceeb lahayn hase ahaatee nimankiibaa intay warqad kaleeto qoreen markii sayidku sayid maxamed saalax weeye uu muqdisho u kaco kaatunkiisa maaragtay muxuu tiin baraha u ah oo warqadda ku shaabadayo markuu muqdisho gelayo waa iska bixiyaa meeshuu kaga taga warqaddii bay kii isaga gacanhayaha u ahaa intay lacag siiyeen bay muhrigii kaga dhibsadeen xaaji cabdiraxmaan sayid maxamed baa igu yidhi sidaas marka warqaddii iyagu soo qorteen ayaa dhulka la geeyey warqad ceebeed ahayd oo tii runtahayd oo lasoo dhiibay lagu bedelay marka warqadaasna waa ka jawaabaya daraawiishna waa u sheegayaa waxa uu yahay iyagu waa u jeedaan waxaa leeyahy warqadda markii la keenay wuxuu u dhiibay sheekh cabdulla qoryow nin la oran jiray oo reer oo xasan ahaa markii dambe se xujoobay oo raggii canjeel ka mid noqday maya lama dilin ayuu u dhiibay wixii balakri daraawiishtii oo dhan oo badankeediyo fadhina ayaa gool galaba halkaa warqaddii laga akriyey warqadaas waa warqadda kicisay canjeel inay dhacdo oo inqilaab lagu sameeyo oo dariiqadii lagu kala yaaco oo dhibaatada keentay waa marka waxaa jirta in gabayo loo soo diri jiray oo maaragtay muxuu ahaaye wax lagaga sheegi jiray waxaa jirta in hadal warqada loo soo qori jiray wax laga sheegi jiray masalan ba ka soo qaad sheekh cabdullaahi qudub wuxuu tegey baargaal isagoo boqorkii boqor cusmaan la jooga ayaa boqorkii weydiiyey wuxuu yidhi war bal ninkan la sheegayay sayid maxamed cabdulla xasan bal nooga waran sayidii waa jaahil buu yidhi dadkii lumiyey aan waxba kala oqoon kolkaasuu boqorkii waa maalinta layii boqorka ficil baa laga dareemay wuxuu yidhi war sayid maxamed waa jaahil kaa maqli mayne runta noo sheeg buu yidhi sheekh cabdullaahi waa kan warqadda usoo qoray qasidaa usoo diray qasyadii taasuu 250 bay ahayd 350 buu kaga jawaabay oo af carabi ah waa taalo waa buugga aad haysa waa ku qoran tahay marka sidaasaa dacaayad loogu furay dee way iska anfiyayaa wuxuu leeyahay war anigu saasaan ahaye ninkii iga fiican ha soo baxo deeqsi baan ahay islaam baan ahay maaragtay muxuu ahaayey walaal baan ahay wax walba sheegay dee intii nin lagu rabay buu meesha ka sheegay nin muslima intii lagu yiqiin ayuu meesha ka sheegay marka way isbaraxayaayo waxa ay sheegayaan muu banaanka iska dhigay waqtigaa u tiriyo waa goorma waqtigaas waxay ku beegan tahay 12 12 maaha 1911 bahalayaagayo warab inay inoo timaado markaasaa yaa garta wixii markii hore waxay soo riday waraaqay soo riday waraaqihii baa sidii nabadeed ay ahayd waraaqihii baa la qaatay ooti waraaqihii lagu siirsan yahay mise الله محاجيبه يا استبيد بدل مeel walba waa la kala yaacay adoo markii la kala yaacay yaad raacday halkee u baxay waxaan soo kacay xaqii xoolihii iyo xaqaas oo ma aan soo qixin sayidka wax ma ka raacay may ragii raacay sayidku ma raacay ragii sayidku waxa raacay wax yarba cilmo ma raacay waxaan 100 nin ahayn baa raacay xilligii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ama UDIS waa dhici kartaa riwaayado kale inay jiraan laakiin riwaayada aan ugu arkayo qaabka ay ku samaysantay waxaa la yiri Yaasiin Cusmaan oo Rooma ka soo noqday baa 1913 markaas Talyaanigu ma joogo Talyaaniga Ingiriiska jabay 1940 dagaalkii labaad ee adduunka oo Ingiriis baa uu Soomaaliya oo dhan isku xukuma markaa oo Rooma ka soo noqday wuxuu baa ku soo dhacay oo la xiriira qarannimo iyo Soomaali in nidaam qarannimo u raadiyo loo sameeyo Cabdulqaadir Sakhaawudiin oo isaguna Addis Ababa ka soo noqday uu la kulmay markaa
wuxuu ku yidhi warniyahow dareen noocaas ay ugu jireen see wax nidhaha waxay yidhaahdeen ninka la yidhaahda maxamed xaaji xuseen oo mahadaay dukaan ku haysta ninka aan raadin ninkiiba u yeertay saddexdoodii baa waxay yidhahdeen niman dhallinyaro aan isu keeno halka aan wax ku qornay nimankaa 13 aad maqasheen bay isu keeneen qaarkooda yar yar bay ahaayeen wiilal yar yar baa waxaa la yidhi nidaamkan ingiriiska oo waddanka xukuma inay kama yeelayo wax arrimo siyaasadeed aynu wiilashaan idhaahna safiin baa loo aqriyaa guri cariisha baa la yidhi oo aan ka fogeyn masaajidkan marwaas via roma agteed oday xaaji diiriye la oran jiray gurigiisa hoostiisu ahaa baa la yidhi bay waxay ugu bilaabeen safiine 13 wiil oo yaryarka qaar baa waaweynaa saydiin nur xirsi iyo saddexdooda iyo rag baa waaweynaa laakiin cabdulqaadir muxuu ahaa ismaa geedi raage iyo daandhaga weyn oo yaasiin la dhashay iyo cali barduro isaguna qaraabo la ahaa iyo niman kaloo dhowr ay waxaasoo dhan wiilal yar yar ay ahayn baa siyaasad xataa qaangaar uma ay ahayn safiina loo bilaabo sidaasay ku wateen siyaasadooda u hoosgeliyeen markii askartu soo kormeeraan safiina loo akhriyay oo ka tagaan markii dambe way iclaamiyeen meel guriga markii dambe uu ahaa guriga baarlamaanku bay ka samaysteen cariish markii hore waxay u bixiyeen nadhis naadiga dhallinyarada soomaaliyeed macnaha idinku waxaa u taqaaneen SWC Somali Youth Club u taqaaneen mar dambe ayaa loo baxshay siyaasad loo rogay intay xoogeysteen ay yiraahdeen siyaasad baa noqonayna markii naadiga ku gabanayeen markaa rag baa soo baxay markii dambe nimanka asaasay yaasiin cusmaan durbade waa iska dhintayba isagaa la yidhahda aabihii buu ahaa 1947 waa iska dhintayba sakhaawadiina waxaan filayaa waqtigu dhintay ima cadda laakiin isaguna wax badan kama sii dambeeyay xaaji maxamed xuseen baa saddexdii nimanka ugu firfircoonaa sii noolaaday oo siyaasadda aad ugu sii jiray raggaana soo baxay aad maqasheen cabdullaahi ciise iyo aadan cadday raggaas iyagu ay soo qoreen oo ay soo rukuluudgareeyeen oo gobollada ay uga yeereen sida mahadday looga yeeray xaaji maxamed xuseen oo kale raggaan ugu caansanaa marka waa rag gadaal ka soo baxay waqtigu ay ugu yar awgeed raggaas iyo arrimahaas oo dhan ma wada xusi karo waxaan usoo gudbayaa SWL marka taariikhdeedu waxay ahayd 2 nooc waqtiga halganka oo 60kii ka horreeyay waqtiga dawladnimada waqtiga halganka meesha ay gaarsiiyeen Soomaalinimada iyo qaabka siyaasadeed oo ay u abaabileen Soomaalida wax ilaa iyo haddeer aynu aragnay aynu ka fikiri karna ma aha iyagoo weliba aan aqoon lahayn aqoontoodu siday u gaabneed dadaal bay ahayd iyo ikhlaas wax walba ikhlaaska sameeya waxaa ku tusaya ilaah Jabuuti ilaa Dirdhabe ilaa Harar ilaa Hargeysa ilaa Gaarisa intaas oo dhan ay hal mar isu keeneen dhaqankoodii wuu ballaarnaa dhaqankoodii waxaan tusaale uga dhigayaa maalintii xorriyadda la qaadanayay oo cabdullaahi ciise xukuumadda madaxda ka ahaa dadkii lagu martiqaaday xukuumadda sida jaamac maxamed qaalib uu xusuusinayo waxaa ka mid ahaa dowladda lagu martiqaaday Israa'iil mar dambe ayaa xulubteen dowladdii oo waxay damceen Israa'iil waxay dooneen Israa'iil inay ka noqdaan martiqaadka ay siiyeen cabdullaahi ciise wuxuu yiri dowladda cusub ee dhalanaysa Soomaaliya qalad qowlkeeda ma jabinayso Israa'iil uu la xiriir wuxuu idinku ka noqdo anagu afkayga kama orano idinku ka noqdo martiqaadka anagu ma qanacsanin inaad noo timaadaan sidaasay ku dhacday dhaqanka dowladnimo ay ku bilaabeen iyo sida ay dareemayeen noocaas u ah marka waxaan uga dan leeyahay halka kan nuur dhalbaas oo reer hobyood ah rag badan oo qaraabadiisa wax bartaa magaalada jooga ma u raadsan xasan cali maruu geeyay buuqii wuxuu yiri hoo halkan barasho ka raadso xasan cali maruu naftigiisu qaraabadiisa ma waayo cabdiraxmaan wuxuu oo saaxiibkiisa ahaa buu raadsaday waxna kama dhaxay qaabkaasi marka wuxuu ahaa dhaqankii laga dhaxlay u dhis marka arrinta tan inaan wax badan ka sheekayno sida marka hore xusay taariikhdan iyo waxa walaalkeena oo xusay hal arrin baan ku daraya ninkaas arrintu xusay muhiim ah arrimaha hadda aan xusay waa hogaaminta siyaasadeed hogaaminta aqooneed waxba kama aan xusin wax badan baa ku jira ninka oo xusay shara jaama iyo niman badan oo hadda waxa xilliga ka sheekeynaya kutubta ku qoran oo qarniyadii dhexe konton sheekh oo Soomaaliya ayaa kutubta siirada adduunka qoran uu ka mid yahay sheekha caanka waxa la yiraahdaa wuxuu ka mid yahay culimada ugu sarreysa xagga xadiiska caalamka islaamka Cabdullaahi Yuusuf Zeylac intuu Zeylac ka tagay markii dambe Qaahiro ku dambeeyay 7 qarni ka hor diblomaasi ahaa dowladda awdal aan idin sheegay ayuu diblomaasi u ahaa oo masaarida kala hadli jiray masaaridu waxay xiriir la lahaayeen nasaarada xabashida marka ninka diinta
xabashada xukuma qaahira laga soo diri jiray marka masaarada lacag badan sii jiray si arrinta ugu fududeeyaan arrintaas kula hadla wuxuu war dawladda tani marka kale lacag sii haysaan muslimiinta dadka iyaga ilaayaan ninka diblomaasiga baa kamid ah sheekha waxaa kamid ahaa oo ay tahay inaan xuso cabdirasaaq dhowr asbuuc kahor waxaa dhintay awshaama cumar ciise laba cali isma weydiin awshaama cumar ciise wuxuu kamid yahay hogaaminta aqooneed ee Soomaaliya sida ninka Ashra Jaamac iyo rag badan oo kale isaga iyo Muuse Galaal waxaa la yiraahdaa waa nimanka buuniyaasha iyagu soo saaray buuni awshaama cumar ciise waxa ka baranay caalim ama professor waxa tiraahdaa af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa buuni marka buuniyaasha soo saaray buu kamid ahaa isaga iyo Muuse Galaal oo cidna wax ma dhigin iyaga wax isbaray awshaama cumar ciise iyo cabdirasaaq in lagu xusuusto dadkeena wanaagsan salafkeena wanaagsan labadu waa mudan yihiin fakarka asaga ayaan anagu aan ahayn dad oo yara jilicsan oo sida looga sheekeenayo dhaqankoodu uu ilbaxnimo uu ku fadhiin dhaqankeena ilbaxnimo ku fadhiya taariikh ku fadhiya afkeenu 7,000 sano jira xiriir baa waxa la leedahay ilbaxnimadii dunida oo dhan marka waxa waaye dad sida loo liidayo ama dhibaatada maanta aanu ku noolahay u liidan anaga manihin moogtay afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga xoogiisa waa local hadii wadankan wadan faaruq oo la yimid oo ahaa dadkii imaadeen afkoodii baa lagu hadlaa haddaba waxa dhulka degan dad wali Carab ah oo Yaman ah oo meel walba ka imaadeen af Soomaaliga ku hadlaan afkoodina waa yaqaanaan marka waxa way hadii imaadaan ayadoo ay faaruq meesha tahay afkoodaas baa noqon lahaa afka meesha looga hadlay marka meesha dad baa deganaa dhaqan baa jiray af baa jiray iyadoo marka sida loo degan yahay baa islaamku dhashay moogtay islaamku markuu dhashay dadka Soomaalida waxay noqdeen dadkii diinta islaamka xambaaray faafiyeen haddana galbeed la aaday wadadii ayagu ay ku yimaadeen dib ugu la noqday ama koonfur ha noqoto ama dhinacaan oo maaragtay Ethiopia loo aado dadka Soomaalida yaa faktarka faafinaya diinta islaamka ah laakiin professorka waxaan rabay khayr Allah si 89 markaa uu xamar joogay aanu waxaan dhiganayay jaamacadda siyaasadda iyo saxaafadda marka macallinkayga waa noo sheegay in researchkaasi socdo adna ku jidho markaa noo ka sheegay laakiin wuxuu nagu daray inaan ilaawin wuxuu yiri dawladda Sweden baa maal gelinaysa dawladda Sweden marka outputka waxa yeelanaya dawladaha maal geliya researchkan waxa ka soo baxa marka waxaan ku weydiin lahaa arintaas inay jidho Sweden maal gelinaysa horta aan meesha aan ka imid iyo meesha oo aan wax ku bartay meesha research ku sameeyay Sweden maaha Sweden ma ay maalgelin marka waxaan qabaa qabaa'ilka Soomaalidu ay sheeganayaan qarannimadanadii asaga dumiyay dhibaatada maanta haysta asaga mas'uulka ah laftigiis inuu asal yahay oo macna leeyahay shaki weyn baa ku jira mana aaminsan inuu jiro qabaa'ilkan marka waxay noqonayaan laba nooc ay maartay qabaa'ilku u sameysmayaan reer badan oo maartay xoog leh xoolo leh boqor leh waxooda la soo guuray ay u yimaadaan reer yar meesha degan kan yaraa la sheeqina oo dad sheeganaya haddii qof oo carab daraadeed uga soo cararay ila meelahaas oo Soomaaliya waxay isku qabsan jireen maartay boqornimada iyo saldanada isku qabanayeen geelana Soomaalida dhaqan waxay u lahayd inay iska dhacaan ama waxyaabo kale meel ka soo cararay ama abaara ka keeni karta ama maxaan ku yiraahdaa dhibaato kale ayaa ka keeni karta meeshii ama daaq ahaan u imaanaya ciduu u yimaada ayuu sheeganaya cidaas marka Soomaalida dhaqan waxay u leedahay khaasatan hawiyaha iyo daarood waxay dhaqan u leeyihiin qofka yimaada dad sheeganaya xooluhu neef la aw gowracaya oo dadku u qalaya waliimeynaya meeshaasuna ku dhaaranaya inuusan sheeganayn qabiilkii markaasaa la leeyahay annaga ka damaana qaadayna xoolahaaga iyo adigaba annaga naga tirsan tahay cadowgeen meesha ayaa maartay qofkii kaga mid noqonaya marka waxaad arkaysaa laakiin saas ay tahay reer ahaan gooni waay korkaas ciddii qabiilku sheegana laantii inta la soo qaado ayaa lagu daray iyo daarood waa qariyaan laakiin dirta iyo nimankan maartay diili mirifle yani badanaaba magacyadooda waa ka dhex muuqda in ay maartay qolo ku soo biirtay marka aan leenahay saddex xiisa iyo saddex soo raac waad garanay waa iska cad yahay inay soo raac ay yihiin gadabirsiga saas oo kale waxay yihiin ayagana saddex soo raac iyo maartay qolo kale ayaa la yiraahdaa
waa cad yahay. geladii haddaan imaano afgoy aad timaado waxaad arkaysaa dhaqan iyo dhiig. qolo hubaar la yidhaahdo waxay yidhaahdaan dhareer wadaag iyo dhalad. yani hadallada qabaa'ilka la siinayo ayaa waxaad ka dhadhaminaysaa ka dhex muuqanaya inay yihiin dan wadaag inay yihiin. nimankan waa cadaystaan laakiin kuwa kale ma cadaynin. marka kan waa qeyb ka mid ah mooye waa waxyaaba fara badan ciida ka badan ayaa jira dalaa. marka anigu waxaan idiin ahay oon idiin soo propose garayna hadda waxaa waaye isbahaysiga ugu fiican oo aan ku midoobi karno oo aan ku shaqayn karno waa qaran Soomaaliyeed, waa midnimo Soomaaliyeed. ma garatay waxa naga dhaxeeyo waa af, waxa naga dhaxeeyo waa dhul, waxa naga dhaxeeyo waa diin, waxa naga dhaxeeyo waa xeer, waxa naga dhaxeeyo waa calan iyo magac waaye moogtay. marka kan inaan difaacno waxaan qashinka oo la wado ee Soomaali kala reebay ee tilaabo lala gaari laayahay oo qofkii tilaabo qaada qabiil ahaan loo dilaa soo ma garan oo qof allaale iyo hadda fiiri qof alla qofkii xun oo Soomaali ah qabiil baa soo saara. qof kasta oo qiimo lehna qabiil baa dila yaa. marka waxaa waaye ani waxaan qabaa dhalinyaro jirto meesha fadhido kulli idinka hadhow sheegi doontaan oo aragtidooda iyo fakarkooda uu yahay in ay qabiilka ka hortagaan. ma aha qabiil in laga hortago, qabiilka waa in la fasiro in uu dhib dadka Soomaaliyeed ku yahay moogta. waana in la fasiro meeshii looga guuri lahaa oo dadka isu keeni karta. meeshii looga guuri lahaa oo dad isu keeni karta waa qarannimada Soomaaliyeed. waa in madax bannaani Soomaaliyeed la helo, waa in midnimo Soomaaliyeed la helo, waa in hore umar Soomaaliyeed la helo. ولا شيء هناك برائب